gurgaad iyo qofarina bar gurgaadunam inagoo 20 qafood ah ayaan godad ka qodnay guryo dhexdooda kadib kor ayaan ka sameeyay markii la sameeyayna jaranjaro ayaa loo sameeyay kadibna hubka iyo rasaasta ayaa lagu qarin jiray in ilaa 3 maalmood muuqaalo laga duubay kadib markay tababarka dhameysteen iyagoo markaa loo gelinayo dharka ciidanka kuwooda kala duwan si markaa shabaabku ay muujiyaan in ciidamo badan ee tababar u soo gabagabeeyeen dabcan muuqaalo waan aragnay dhowr bilood ka hor kuwaas oo cudud iyo awood ay ku faanayaan iyagoo ciidan tiro badan soo bandhigaya laakiin sirtoodii maanta waa la kashifay kooxdii khawaarijta ahayd wax kasta ay sameyn jirtay maanta halkan ayaa la soo dhigay 3 maalmood ayaa dhar kala duwan noola geliyay si dadka loo qaldo muuqaalo ciidamo badan inay tababar u soo gabagabeeyeen ayay ka dhigayaan laakiin waxaas oo dhan waxba kama jiraan isaga wuxuu leeyahay waa la ii soo qalday marwo fertility center xarunta ugu fiican daaweynta cudurrada keena dhalmala'aanta rag iyo dumarka lagu dooro daaweyn qalliin iyo bacriminta IVF waxaan kula jirnaa ilaa aan dhabta kuu saarno ubad ilaahay idankii shaqadoon ayaan ahaa maskiin baahan ayaan ahaa nin Soomaali ah iyo kuwa kale ayaa isoo qaldeen markii la ii geeyay kooxdana hore ayaa tababar la ii geliyay ilaa 50 Oromo ah in ka badan 100 Soomaali ah markii dambana 50kii Oromada ayaa gooni loo bixiyay isaga wuxuu raadinaa qiil kasta oo ugu bixi karo maxkamadda shuuta horteeda laakiin kani wuxuu aaminsan yahayba in marka hore ogaansho uu soo galay kamid noqoshada kooxdan eeg isagana 35 sano ayaan jiraa waa Oromo kale sheegayana inuu muslim yahay uu soo galay ee ahayd in la ciilay maxkamadda shuuta hal su'aal ayay dadka weydiisaa su'aashaasna jawaabteeda waxba lagama qabto waxa la weydiinaa maxaad maxkamadda ka codsanaysaa hada kaligii ma aha ka shabaabka iyo kan askariga dawladaba su'aashaas qofka marka la weydiiyo wax wanaagsan ayuu codsadaa isagoo codsaday xitaa wax wanaagsan ayaa toogasho lagu xukumaa muuqaalka marka tusiya shabaabka in xogtooda oo dhan ba la haysto sawirada iyo muuqaalada ay soo bandhigaanna waxba ka jirin godadka ay qotaanna ka soo arag gudaha Telegramka waxaad arkaysaa maanta iyagoo la duqeynayo intuu ordo meel galo kaligiis lagu dhufanayo hal duqeyn Telegramka hal martag waxaad soo arki doontid dabadeedna halkan ku soo laabo labada nin sheekadooda waa ka dhaxbixi doonaa maxkamadda shuuta ay hortaagan yihiin iyagu waa la soo qabtay shabaabnimo ayaa lagu soo qabtay labaduba way qirsan yihiin inay la shaqeeyaan raggaas mid kamid ah wuxuu ku andacoonaa in la qalday kan kalena wuxuu leeyahay waa la ciilay ogaansho ayaan ku soo galay waa idinkaga dhaxbaxa marka muuqaalka bu'aale inagoo 10 qafood ayaa guri nagula xareeyay laakiin salagle ayaan shaqo ka qabanay isu salagleeno salagle markaa joogto maxaa qaban jirtay gurgaad iyo qofarina bar inay wuxuu taasbeen malaakan al-shabaab istidaboon marka hore qof muslim ma aha Soomaaliya goormo soo galay qofka soo gal dhahay yaa waayo magaciisa anoo sheego halkuu ka shaqeynay sidoo ku tagay meesha sidoo tababar ku qaatay xaaladii uu soo maray nooga sheekay markiisa horena ka soo bilaabo taariikhdiisa kama jamara muslim inaad abaatay muslim naacho marka hore aniga muslim ayaan ahay hooyo iyo aabbo waa muslimiin meeshan ku dhashay waa mooyaale waxaan Itoobiya ka soo baxay 2015kii bishii 3aad tirsiga Itoobiya intii aan shabaab la joogay iyo intii aan xirnaa waxay isku noqonayaan qiyaastii 2 sano halkan waxa ay keenay wiil aan habar wadaagnahay ninkii soo waday magaciisa saxan maxaa maxaa shabaab Ahmed Hassan Bubutaale Firawn alaagam shaqadiisa ma aqaan laakiin inuu muddo badan ku noolaa waddanka South Africa ayaan ogaa kadib waxa uu yimid Kenya kadibna waxa ogaaday inuu Soomaaliya joogo alaagam Soomaaliya ndaale inta gormo Soomaaliya gormo wallahi ma aqaano ما قفوا أصير قرابتينا أكودك. isaga kaligiis waay لجنة والناس راسة هالو سرا الصومالية على wuxuu yiri shaqa ayaan ku siinayaa Soomaaliya shaqa tara ayuu dhahay wixiina been ay noqdeen al-shabaab inaan ku biiro kuma fikirin kama tawala malaaganyootin markaan mid wuxuu igu soo xiray nin aan aqoon kadib tababar ayaan galay meel aan u baxana maanan haysan waan iska ogolaaday mawjaal nabaranyim yamluunin ishika maalat ucu mawjaal nabaranyim siltanaachon usarkuñ okay siltanaa usarkut majamara siltanaa tababarkii ugu horeeyay waxaan ku qaatay jilib tababarkii labaad waxaan ku galay bu'aale
tababarkii saddexaadna waan bilaaban waan isaga soo baxsaday tababarka koowaad waxaan ahayn 50 qofood oo Oromo ah iyo 200 oo Soomaali ay ahaayeen laakiin tababarkii labaad waxaan ahayn 150 keeni Oromada ahaa kaliya anigu wax dagaal ah ma aan gelin ma jiraan tababar kaliya ayaan qaatay magaca tababarka koowaad ma xasuusto laakiin ka labaad waxaa noo bixiyay magaca Bilal ibn Rabah Bilal ibn Rabah waxaan ahayn 150 keeni tababarka aan ku qaadanay badankoodna waa Oromo tan saddexaadna inagoo magaca inoo bixiyay waa tii aan isaga soo tagay 2 isbuuc iyadoo socota shabaab intii aan la joogay hal mar ay lacag siiyeen waxaana ahayd $60 kaliya arrinta tababarka see loo qaadanay sidee loo soo xirayno saddex bilood markaan tababarka qaadanaynay kadib dadka kaliya ee 4 goobood tababarka ku qaatay iyo annaga shabaab markaan ku soo biirayay rabitaan aniga igu jiro ayuu ahaa markii warar shabaab waxaan u galay dhibaato la ii geystay 35 sano ayaan jiraa warmo muslim familkiisa islaamka aslimna dadayna tayqan bilal ها مسلم أي هاين بلالنا إنه مسلم يهاي لما ويدينيو لك aslimna الشباب وحل عجاي ما يسنسين يتفصم بين النجار اللي كلينك أرمضة مدحض الجوكتا أيان حكتي سيجري وحي عن قبته يوحي قبصدا أيان حكته ذو وجود بيجري كمان عقعد سنة متأيك أو بيانس ودبيتسب waxaan codsan lahaa in la iska kayfasaxo gobolka Oromo ayaa guri leega siiyay beetna wada indizaan wada beetasab matagaat qoyskayga ayaan rabaa inaan gobolka maxaarada ka soo raro matayaqna mangistan imaan ragaga marwo fertility center xarunta ugu fiican daaweynta cudurrada keena dhalmala'aanta rag iyo dumarka lagu dooro daaweyn qaliin iyo bacriminta IVF waxaan kula jirnaa ilaa aan dhabta kuu saarno ubad ilaahay idankii